بسم الله الرحمن الرحیم aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah اینا خیال خامیه که اینا تصور بکنن بتونن دستاوردهایی که عزیزان ما به خاطرش خون دادن جون دادن به این سادگی معامله بکنیم. waa madaxweynaha Iiraan oo si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray Donald Trump isagoo si cad u sheegaya inaysan caga jugleen cidna u imaan karin. hadalkan waxa uu imaanayaa xilli xiisadda nuclearka Iiraan ee u dhaxaysa Washington iyo Tehran cirka ay ku shareeran tahay. Eritrea oo si adag uga digtay damaca Ethiopia ee la xiriira dekada Casab waxaana xoogaysanaya gufta u dhaxaysa labada dal ee dariska ah. wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale barnaamijkeedii kugu haynaa iyadoo Mareykanku uu sheegayo in uu soo bandhigay dhowr hindisa oo xabad joojin iyo isdhaafsi maxaabiista ah. sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día... waa khilaaf hor leh oo dhanka diblomaasiyadda oo ka dhashay hadalkan uu jeediyey ra'iisul wasaaraha Spain oo ka dhex curtay Madrid iyo Tel Aviv. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee IOM ayaa shaacisay in sanadkii 2024 uu ahaa sanadkii dadkii ugu badnaa ee dunida ay barakacaan sababo la xiriira colaado iyo masiibooyin dabiici ah. dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada. waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda nuclearka ee Iiraan iyo Mareykanka u dhaxaysa. inkastoo toddobaadyadii la soo dhaafay isu soo dhawaansho uu jiray xagga wadahadallada la xiriira, haddana hadaladii ugu dambeeyay ee uu jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaaladda uga sii daray oo noqday dab basiin lagu sii shubay. haddaba madaxweynaha waddanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeeray saacadihii la soo dhaafay Donald Trump oo ka hadlayay kulamadii uu la yeeshay madaxda Sacuudiga iyo Qatar. warbaahinta waddanka Iiraan ayaa soo timinaysa in madaxweyne Mas'uud Pezeshkian uu si adag u dhaleeceeyay hadallada Donald Trump isagoo sheegay in Iiraan aysan u jilballaaban doonin cid kasta oo cabsi gelinaysa. hadalka Mas'uud ayaa si toos ah waxa looga sii daayay telefishinka Iiraan xilli xiisadda u dhaxaysa Tehran iyo Washington mar kale cirka ay ku shareeran tahay. isagoo arrimahan ka hadlaya madaxweynaha waddanka Iiraanna waxa uu yiri اینا خیال خامیه که اینا تصور بکنن بتونن دستاوردهایی که عزیزان ما به خاطرش خون دادن جون دادن به این سادگی معامله بکنیم. madaxweynaha Iiraan waxa uu sheegay in Trump uu ismoodi karo in inta uu yimaado halkan haddana ku hadaaqi karo hadallo cabsi gelin ah. waxaana uu sheegay inagu shuhaadada waxay naga tahay mid ka macaan geerida sariirta lagu daldinto ma cabsi gelin karaan buu yiri cidna oo u jilbaabo mayno. hadalkan ayaa waxa uu muujinayaa kororka hadallada xarafta leh iyo ismaandaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo Iiraan iyadoo Mareykanku cadaadis oo saarayo Tehran arrimo la xiriira barnaamijka nuclearka iyo dhaqaaqyada gobolka ka socda. Mas'uud Pezeshkian wuxuu adkeeyay mowqifka taariikhiga ee Iiraan ee ah inaysan cidna jilbaha u dhigan dhulka. waxaana uu sheegay inaysan aqbali doonin cadaadis shisheeye taas oo muujinaysa difaaca adag ee ku saabsan madax banaanida qaranka Iiraan. waxaa lagu soo waramayaa in hadalladan ay u muuqanayaan kuwa xaaladda sii adkaynaya iyadoo lagu wado in wadahadallo dheeraad ah ay yeeshaan wufuudda ka socota Mareykanka iyo Iiraan kuwaasi oo dowladda Cumaan ay dhexdhexaadinayso. waynu arki doonaa wixii wararaha ee arrimahaasi ku soo kordha. markan aynu eegno xagga geeska Afrika iyadoo muddooyinka ugu dambeeyay xiisad dhanka diblomaasiyadda ay ka dhex aloosanayd wadamada Ethiopia iyo Eritrea isla markaasna la sheegay in ciidamo aad u fara badan lagu daabulayo xadka u dhaxeeya labadaasi wadan ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa la sheegayaa dowladda waddanka Eritrea inay si adag uga jawaabtay hadallo isa soo taraya oo ka imaanaya dhanka Ethiopia oo la xiriira damac kaga jira dekada Casab ee waddanka Eritrea. arrintaasi oo la sheegay inay xudun u tahay damaca la xiriira
baddoonka ee ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya warbixin amuraha la xiriirta waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise gobolka Geeska Afrika oo ah mid kamid ah gobolada ugu xasaasisan uguna isdhexgalka badan dhanka juqraafi ahaan ayaa dekada Casab ee ku taala dalka Eritrea waxa ay u muuqataa mid uu ka soo ifbaxayo khilaaf goboleed siyaasadeed kaasi oo u muuqda mid si xoogeysanaya dekada Casab waxa ay ku taala xeebta badda cas ee dalka Eritrea waxaana muddo badan adeegsanayay Itoobiya taasi oo adeegsanaysay dhoofinta iyo sidoo kale soo dejinta badeecadaha balse waxa ay lumisay kadib markii Asmara ay si buuxda u heshay madaxbanaanideeda sanadkii 1993 iyadoo Itoobiya ay sheeganayso inay leedahay xuquuq dabiici ah oo ay ku hesho marinbadeed Eritrea waxa ay ka shakisan tahay damaca dhabta ah ee Addis Ababa xiisadu waxay dib ugu soo laabatay masraxa gobolka markan la iskuma adeegsanayo rasaas balse waxa ay ku socotaa istiraatiijiyad sheegashooyin iyo tartan dhanka dekadaha ah markii Addis Ababa ay kor u qaaday hadalkeeda ku saabsan xuquuqda ay u leedahay marinbadeed Asmara waxay u aragtay tallaabooyinkaasi mid halis ku ah madaxbanaanideeda iyo in la jabinayo heshiiskii nabadda ee sanadkii 2018 isbeddelka siyaasadeed ee Itoobiya iyo saameynta gobolka isbeddel weyn oo ka dhacay siyaasadda Itoobiya gaar ahaan baahida ay u qabto dekad ayaa furtay albaab kale oo keeni kara kala qaybsanaan cusub oo gobolka ka dhacda waxaana xaaladda sii murjiyay loolanka caalamiga ah ee ka socda badda cas iyo isbeddelka awoodeed ee Geeska Afrika eedeymo iyo dagaalada afka ah tan iyo markii Eritrea ay xornimadeeda qaadatay sanadkii 1993 Itoobiya oo ah dal dad badan oo aan lahayn marinbadeed waxa uu dadaal badan ku bixiyay sidii uu ku heli lahaa marin istiraatiiji ah oo uu ka galo badda cas iyadoo xiisadu ay cirka isku sii shareerayso xisbiga dhaqaalaha qaran ee amxaarada ee Itoobiya ee loo yaqaano MHB waxa uu ku dhawaaqay in arinta dekad wadaag ah ay tahay arin mudnaan gaar ah leh bayaan uu soo saaray guddiga fulinta ee MHB ayaa lagu sheegay in geedi socodka xorriyadda Eritrea ee 1993 uusan ku dhisnayn ka qaybgal dhab ah oo dadweyne waxay sidoo kale ku eedeeyeen Eritrea inay la safan tahay xoogga doonaya inay xasiloonida gobolka carqaladeeyaan ayna tahay wakiil cadawga taariikhiga ah ee Itoobiya dhinaca kale Eritrea waxa ay ku eedeysay siyaasiyiinta Itoobiya inay kor u qaadayaan damac isballaarin ah oo halis gelinaya madaxbanaanida dariska wasiirka warfaafinta Eritrea Yamani Gebremichael ayaa ku qoray baraha bulshada in hadalka MHB ay yihiin qaladaad taariikhi ah iyo mid sharciyeed oo lagu doonayo dhulka dariska walaaca Eritrea markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu baarlamaanka hortiisa ka sheegay helitaanka dekad inaysan ahayn raaxo balse ay tahay baahi jiritaan ah dooddu waxa ay cirka isku sii shareertay Asmara iyadoo hadalka dadweynaha iyo mas'uuliyiintu ay tilmaamayaan suurtagalnimada sheegasho taariikhi ah oo ku saabsan dekada Casab Asmara waxay u aragtaa dhaqdhaqaaqa Itoobiya inay tahay tallaabooyin lagu doonayo in dib loo soo celiyo saameyntii taariikheed ee Itoobiya ay ku lahayd Asmara iyadoo oo la adeegsanayo dana dhaqaale waxaa sii kordhaya shakiga Eritrea ay ka qabto in Itoobiya ay u adeegsan karto quwadaha gobolka ama kuwa caalamiga ah si ay ugu dhawaato badda cas taasi oo keentay in Asmara ay qaadato mowqif adag kuna adkaysato inaysan jiri doonin wax wada hadal furan ah oo laga yeelan karo dekada khilaafka hantida siyaasiyiin badan oo Itoobiyaan ayaa aaminsan in magaalada Casab ay tahay dhul Itoobiya ay leedahay aysan jirin kala balaaweyn dhinaca Eritrea oo Itoobiya inaysan helin marinbadeed kadib aftidii 1993 oo keentay in gooni ay u go'do Eritrea danjirihii hore ee Itoobiya Taruna Sana ayaa sheegay in wali ay furan yihiin xulashooyinka dhexdhexaadnimada iyo xisaabta military ee ku aadan dekada Casab waxa uu yiri in kasta oo Itoobiya ay taariikhiyan iyo sharci ahaanba u leedahay xaqa dekada Casab haddana xaqaasi waxa uu hakad galay kadib gooni istaagii Eritrea danjira Turana waxa uu xusay in Itoobiya aysan wali si buuxda u howlgalin xaqaasi si ay ugu adeegsato danaheeda istiraatiijiga ah balse duruufaha cusub ee dhaqaale iyo juqraafi siyaasadeed ayaa mar kale tafaraya suurtagalnimada helitaanka marinbadeed aragtida falanqeeyaasha siyaasadeed Ashraf Umar Al-Afri waxa uu aaminsan yahay in dekada Casab loo howlgaliyo danaha gobolka balse taasi ay ku dhacayso si is-afgarad ah iyada oo si buuxda loo ixtiraamayo madaxbanaanida Eritrea oo aan lagu qasbaynin ama loo hanjabaynin xogayaha guud ee isbeddelka qaran ee Eritrea Adam Haji Musa waxa uu sheegay in rabitaanka iyo danaha shacabka Eritrea aysan khilaafsanayn baahida Itoobiya maadaama labada shacab ay yihiin daris
xiriirkooduna uu yahay mid iskaashi iyo danwadaag ku salaysan. Muuse waxa uu rumaysan yahay in labada dal ay gaari karaan heshiis ku salaysan danaha wadaagga ah iyaga oo ay dhexdhexaadinayaan quwado dibadeed oo leh awood iyo khibrad horumarineed. Laakiin waxa uu xusay haddii aysan jirin rabitaan ka imaanaya dhanka Eritrea inay tahay mid ay ku adkaanayso in la wadaago dhinaca diblomaasiyadda iyo iskaashi dhab ah. khilaafka dekada Casab waa tijaabo iyo caqabad hortaala dalalka Geeska Afrika si ay uga gudbaan khilaafaadkii hore una gaaraan is-ixtiraam iyo wax wadaag iyadoo la eegayo himilooyinka sharciyeysan ee Itoobiya iyo walaaca Eritrea ee la fahmi karo. Falanqeeyaashu waxay aaminsan yihiin in wadahadal daacada uu yahay xalka ugu wanaagsan ee labada dhinac. hase yeeshee haddii kalsooni la'aan iyo hadallo ku salaysan qarannimo ay kor u kacaan waxay qarka u saaran tahay in xaaladdu ay ku sii siqdo dagaal cusub. Yaxye Ciise, sanadkii la soo dhaafay ee 2024 wuxuu ahaa sanadkii dadkii ugu badnaa ay barakaceen sababo la xiriira colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga. haddaba warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dadka socdaalaya ama muhaajiriinta waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdifataax mawlid xaaji cabdi. hay-adda caalamiga ah ee socdaalka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo IOM ayaa shaacisay in tirada dadka lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan sanadkii 2024 ay gaartay heerkii ugu sareeyay ee abid. tiradaasi oo dhan 83.4 milyan oo qof adduunka oo dhan. warbixin cusub oo ay soo saartay xarunta kormeerka barakaca gudaha ee IDMC ayaa sheegtay in tiradan sareysa ay sabab u yihiin masiibooyin dabiici ah iyo dagaalo ka dhacay meelo badan oo dunida ah. agaasimaha guud ee WHO Amy Pope ayaa ku tilmaamtay tiradan digniin cad oo u baahan tallaabo geesinimo leh oo isku xiran. waxayna ka digtay in tirada dadka gudaha dalkooda ku barakacay ay si xowli ah u kordhi doonto haddii xaaladdu sidan ku sii socoto. Pope waxay xustay in warbixintu tahay baaq loogu yeerayo in laga hortago barakaca iyadoo la adeegsanayo xogta iyo qalab kale oo saadaalinaya barakaca inta aanu dhicin, iyadoo ku adkaysay in hay'adaha bani'aadantinimo iyo kuwa horumarinta loogu baahan yahay inay la shaqeeyaan dowladaha si loo helo xalal waara oo ka hortaga barakaca. dagaalada ka socda Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo, Lubnaan, Ukraine iyo Falastiin ayaa malaayiin qof ku qasbay barakac, taasoo saameyn ku yeelatay 10 milyan oo qof oo muddo dheer ku nool barakaca gudaha ah sida Afghanistan, Colombia, Suuriya iyo Yemen. warbixintu waxay iftiimisay in kororka tirada dadka barakacay adduunka sidoo kale si weyn u sababtay masiibooyinka dabiiciga ah iyadoo tiradu ka kordhay 26.8 milyan sanadkii hore isla markaana gaartay 45.8 milyan sanadkan. qiyaastii 30 wadan ayaa soo sheegay barakaca aan hore loo arag oo ka dhashay masiibooyin, waxaana duufaanadu sabab u noqdeen in ka badan kala bar barakaca caalamka, kuwaas oo rubuc ka mid ah laga diiwaan geliyay dalka Mareykanka. warbixintu waxay xustay inaanay jirin calaamad muujinaysa in tirada dadka ku barakaca masiibooyinka ay hoos u dhici doonto sanadaha soo socda. sidoo kale warbixintu waxay sheegtay in barakaca ka dhashay colaadaha uu weli sareeyo oo uu yahay sababta ugu weyn ee barakaca, iyadoo la diiwaan geliyay in ka badan 20 milyan oo barakac la xiriira colaado. kala bar dadkaasi ayaa ka yimaadeen Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. warbixin la xiriirta hadal uu jeediyey ra'iisul wasaaraha waddanka Spain oo dhaliyay khilaaf hor leh oo dhanka diblomaasiyadda oo ka dhex qarxay Tel Aviv iyo Madrid. wararkii ugu dambeeyay Gaza ayaynu eegi doonaa iyo weliba warbixina la xiriira wadahadallada ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda Mareykanka Gaza iyo weliba duqeymaha Israa'iil ay wado u gudbin iyo xaaladdu saaka sida ay tahay. war kale oo arrimaha Gaza ka agdhow aynu eegno. shalay baarlamaanka waddanka Spain waxaa hadal ka jeediyey ra'iisul wasaaraha waddankaasi Pedro Sanchez. waxaa la ogsoon yahay inuu hormuud u ahaa qorshe ballaaran oo Israa'iil lagu cambaareynayay oo Spain iyo Norway hormuud ay ka ahaayeen. waxaana waddanka Spain oo ka mid ahaa dhowr waddan oo Yurub ka tirsan oo dowlad Falastiiniinta leeyihiin aqoonsaday. Pedro Sanchez dhowr jeer waxa uu si adag u cambaareeyay ficilada Israa'iil ay wado. haddaba hadal uu jeediyey ayaa si adag Israa'iil uga careysiiyey. intaanan idiin soo gudbin hadalkaasi wuxuu ku saabsan yahay bal horta aynu dhegeysanno oo daawanno hadalkaasi uu jeediyey Pedro Sanchez. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no...
ra'iisul wasaaraha Spain waxa uu ka hadlayay su'aal la weydiiyey oo la xiriirtay Israa'iil inay la leeyihiin macaamil xagga ganacsiga wuxuu yiri ma jirto inaan wax macaamil leenahay dawlad xasuuq samaysa hadalkaas ayaa waxa uu dhaliyay carab weyn gudaha Israa'iil arintaas wargeyska The Times of Israel soo ka hadlaya waxa uu sheegay in dhowr jeer hadal caynkan oo kala ay ka soo yeereen ra'iisul wasaaraha waddankaasi Spain Pedro Sanchez waxaana taasi ay keentay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Israel ay u yeertay safiirka Spain u fadhiya magaalada Tel Aviv waxaana la sheegay in berri uu yimaado waa maanta raalli ahaada inuu maanta yimaado xarunta wasaaradda arrimaha dibadda si waxa la sheegay arintaasi cabasho ahaan lagula hadlo iyo hadalada ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Spain in aysan u dulqaadan doonin Israel وهاجاك wadahadalada la xiriira dagaalkan sidii lagu joojin lahaa ayaa ka soconaya magaalada Doha hadaba aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee amuurahan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ergigiisa gaarka ah ee bariga dhexe Steve Witkoff ayaa waxay soo bandhigeen qorshe cusub oo lagu doonayo in lagu sii daayo maxaabiista lagu haysto Mareykanka Gaza iyo in meesha laga saaro awoodda Hamas sida uu ku warbixiyay telefishinka leeyahay kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay iyadoo dhexaadiyaashu ay muujinayaan taageero ay u hayaan qorshahan ayaa waxa la sheegayaa in ay muuqanayso Hamas qodobada qaarkood inay ogoshahay laakiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wuxuu ku adkeysanaya heshiis kooban meesha Hamasna ay ku adkeysanayso heshiiska inuu noqdo heshiis dhammaystiran oo dagaalka dhan lagu soo afjarayo si kastaba ahaatee waxaa laga yaabaa leeyahay Mareykanku inuu yiraahdo heshiiskan ama qaata ama ka taga haddii kalena waa ka bixi doonaa taasna waxaa la sheegayaa inay noqon karto mid markaasi Israa'iil iyo Mareykanka iska horkeeni karta warar la baahiyay xalay ay waxay muujinayaan Steve Witkoff in kulamo uu la yeeshay qoysaska la haystayaasha Israa'iiliyiinta isagoo markaasi sheegay in wadada dhanka diblomaasiyadda ay tahay tan dhab kaliya u shaqayn karta waxaana la sheegay Israa'iil ku adkeysanayso dhabaha militariga in xoog ay saarto laakiin qorshaha Witkoff uu soo bandhigay ee xabajoojinta ayaa waxa kamid ahaa markii hore 40 maalmood taa bedelkeedina in la sii daayo kala bar dadka maxaabiista lagu haysto Mareykanka Gaza inkastoo leeyahay Hamas arrinkaasi oo ay ka soo horjeedaa oo waxay dalbanaysaa in si buuxda dagaalka loo joojiyo isla markaasna loo helo damaanad qaad la xiriira arrimahan dhinaca kale waxa leeyahay waaxda amuuraha dibadda waddanka Mareykanka war ka soo baxay waxay sheegtay in ay wadayso cadaadiska la saarayo Israa'iil iyo Hamas waaxda amuuraha dibadda waddanka Mareykanka sidoo kale waxa lagu sheegay war ka soo baxay fiidnimadii xalay in Mareykanku sinaba uusan ku aqbali doonin in dadka Falastiiniyiinta lagu qasbo in ay ka baxaan deegaanadooda laakiin erey waxa jira la isku gaadayo in aan la qasbin iyo marka lagu leeyahay ikhtiyaar bay u leeyihiin laba arrimood bay kala yihiin haddii aan la qasbin waa dadka inaan qasab lagu saarin laakiin haddii leedahay ma baxaysaa ha jidka lagu furo ama dadku intay dhibtoodaan ileen waynu arkaynaa wararka aynu ka sheekeynay xalay barnaamijka qobraha waxaynu ku soo qaadanay cisbitaalka liirada Yurubiyan ee ku yaala Khan Yunis waxaa lagu dhuftay 40 bambo ama gantaal oo lagu talagalay dhufaysa dhulka hoostiisa inay burburiyaan halkii xabo wuxuu ku dhow yahay hal tan طبعا barnaamijkaas hadii aad daawon dib u daawo Israa'iil waxay ku andacoonaysaa inay beegsanaysay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan Hamas oo cisbitaalka hoostiisa dhufaysa ku lahaa si hadalka u dhigtay laakiin maaha markii ugu horeysay Israa'iil saasi oo kala samayso waxaanu ka warqabnaa cisbitaalka la yiraahdo Al-Shafi oo ku yaal waqooyiga Mareykanka in Israa'iil ku doodi jirtay cisbitaalkaas gabi ahaantiisba inuu yahay xarun military laakiin markii la tagay la waayay kaliya lagu soo arkay dhufays dhulka hoostiisa oo Israa'iil 1960kii iyadoo isticmaali jirtay oo dhismahaasi ku yeel sidoo kale cisbitaalka Al-Nasir ayaa kamid ah meelaha Israa'iil intay burburisay waxba ay ka weyday Hamas marka warbay soo saartay xalay waxay tiri Israa'iil waxba kama jiraan waxay sheegayso annaguna ma isticmaalno goobaha cisbitaalada iyo rayidka laakiin Hamas waxay ku doodaysay in ay tahay arrintaasi arrin Israa'iil ay u damacsan tahay inay ku xalaalaysato ama qiil uga dhigato inay beegsato cisbitaalada
warbaahinta Israa'iil waxay sheegaysaa sida xalay idin soo gudbinay in goobtaasi ay ku shirayeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan iska caabinta oo ku jiro Maxamed Sinwar laakiin warkaas ilaa iyo hadda militariga Israa'iil ma aysan xaqiijin Xamaasna ma aysan xaqiijin waya macluumaadkaas intaas aynu ku dhaafno dabcan wararka ugu dambeeya marayka qasa xaaladdu waxay sheegaysaa saakay sidoo kale duqeymo in ay socdaan dhinaca kale Xamaas waxay aad u soo dhaweysay iyo xoogga iska caabinta Falastiiniinta weerar hubeysan oo xalay ka dhacay daanta galbeed kaas oo la sheegay in lagu beegsaday laba Israa'iiliina nin iyo xaaskiisii oo uur lahayd Netanyahu oo xalay ka hadlay arrintaasi wuxuu sheegay inay tahay arrin foolxun wasiir dalka u dhigaya haweeney ku sii socotay cisbitaalka oo fool ah in ay weerareen Falastiiniinta waxaana uu dalbaday wasiir dalka u dhigaya in la soo qabto oo cadaalad la horkeeno xalay oo idin ilaa saakana waxa la sheegayaa deegaankaas ku yaal waqooyiga daanta galbeed la haysto ee Salfit la yiraahdo in ay ka socdaan hawlo waaweyn oo baadigoob loogu jiro Falastiiniinta ka dambeysay weerarkaasi dhaawaca labadaas qof Israa'iiliinta waxa la sheegay inuu yahay mid aad u daran sida warbaahinta Israa'iil ay ku waramayso waa hagaag macluumaadkaasna intaas aynu ku dhaafno inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir